waxaan hadda ka fikirayaa dowladda Soomaaliya waxa si lama filaan ah ay ula soo baxday geesinimo waxayna noo sheegayaan inaan soo dhiibno Cabdirashiid Janan sidoo kale waxa la joogaa waqtigii aan anaguna ka dalban lahayn inay noo soo gacan geliyaan hogaamiyayaasha Al-Shabaab waa arrin aad muhiim u ah nasiya madaxda Al-Shabaab anaguna waxaan idin siinaynaa Cabdirashiid Janan waa arrin iska fudud haddii si kale aan u dhigana waxaa la gaaray xilligii Jubbaland lagu soo celin lahaa gacanteena haddii Axmed Madoobe uusan ka socon xagga Nairobi hadda kadib markaa waa in annagana aan la wada xaajoonnaa Al-Shabaab sababtoo ah Maraykankuba waxay maalin dhoweed la wada xaajoodeen xarakada Taliban waxaan dhici karin ma lahan haddii Jubbaland aysan gacanteena soo gelayninna innagoo maalgashanay taageernay wax walbana u sameynay haddii aysan soo wareejinayn waxay noqonaysaa inaan markaa toos u abaarno Al-Shabaab. The other bit of it, and I think this is very controversial, but I'm just thinking now that the Somali government has got a backbone all of a sudden, and they are telling us to give them Janan. It's also time that we also demanded that they give us the leadership of Al-Shabaab. Very basic. Right. Give us the leadership of Al-Shabaab, we give you Janan. It's so easy. The other bit of it, and I think this is very controversial, it is time for Jubaland to also return the hand. If Madobe cannot deliver for Nairobi, then let us negotiate with Al-Shabaab. Even the US negotiated with the Taliban the other day. So it's not out of place. So if Jubaland is not going to deliver after we invest in them, standing with them, doing everything else, if they cannot deliver, then we will rather talk with Al-Shabaab directly.